khubarada jaamicadda kansarka ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay xiriirka u dhexeeya caadooyinka horseeda in qofka uu ku dhaco kansarka. Waxaa ka mid ah in xilliga subaxii la cuno cunto aad u kulul. Khubaradani waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen 4 caado oo kala ah. Lambar 1, cunooyinka iyo cabitaanada aadka u kulul. Waxa aad u kordha khatarta ah inuu cudur ku dhaco shakhsiyaadka caadaystay inay cunaan cunooyin ama cabitaano aad u kulul. Waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco kansarka hunguriga iyo kan ku dhaca dhabxanaga. Sidaa darteed, khubaradani waxay ku baaqayaan in la cabin shaah iyo cunooyinka heerkulkoodu ka badan yahay 60 darajo. Lambar 2, qaxwaha subaxii. Khubaradani waxay sheegeen in qofku uu cabo koob ama 2 koob oo qaxwo ay kordhinayso inuu ku dhaco kansarka sambabada. 41% waa natiijo uu soo saaray ururkan si gaar ahna ula socday kansarka kadib markii ay daraasad sameeyeen oo ay baadheen 1.2 milyan oo qof oo xaaladooda si gaar ah loola socday. Lambar 3, in si maalinle ah hilibka loo cuno. In hilibka cas si maalinle ah loo cuno, gaar ahaan kan warshadaysan ee muddada dheer la keydiyay, waxa uu keenayaa dhimasho xilli hore ah heer gaarsiisan 40%. Sababta keentayna waxay tahay in maadada sodium nitrate ay ku badan tahay. Maadadan oo keenta kansarka haddii aad loo isticmaalo. Khubaradu waxay la xiriiriyeen in laga qaado 4 nooc oo kansarka ah oo habdhiska dheefshiidka ku dhaca. Lambar 4, shaqada habeenkii. Hurdada yarida iyo dhafarka xilli dambe habeenkii la soo jeedo waxa uu keenaa inuu hoos u dhaco hormoonka melatonin oo mas'uul ka ah isku xidhka habsami socodka iyo hawlaha jirka. Sidaa darteed, marka hormoonkaasi uu jirka ku yaraado, waxaa batay in jirka uu soo weeraro kansarka sida ay khubaradani sheegayaan, halka sidoo kale uu aad u kordho khatarta kansarka.